subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo sabti ah 7-labaatanka bisha abril ee sannadka 2024 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay washingtonna ka tahay 1:10 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a roobab aad u waaweyn oo ka da'ay qaybo badan oo ka mida dalka Kenya kuwaas oo geystay khasaare kala duwan. Dhadhaab waxaa la sheegayaa in roobabku ay dumiyeen guryaha qaar waxaana ku geeriyooday ugu yaraan 1 qof. guri oo annaga aan dhisanay oo tabardarri loo dhisay ayaa nugu dumay haddii ilaahay raalli ka ahaado 4 oo ruuxay ahaayeen waxaan ka badbaadinay 3 ruux. waxaa keenay haddii ilaahay raalli ka ahaado roobabka oo mahiigaanka ahoo aad u cuslaay oo duufaan ay la jirto. hal cunugna guriga waa naaga dhintay. sidoo kale waxaad maqli doontaan wafdi oo hogaaminaya wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somaliland oo magaalada Boorama ku qabtay kulan qaadhaan loogu ururinayo dadka baahan ee Falastiiniyiinta ku sugan magaalada go'doonsan ee Gaza. sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ka hadlaysa saamaynta ay Afrika ku yeesheen loolanka u dhexeeya waddamada galbeedka iyo Ruushka. waxaa sidoo kale qaybaha dambe aad ku maqli doontaan waayo ayaan dib idinku celinaya qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ururka xuutiyiinta Yemen ayaa aroornimadii hore ee sabtidan maanta ah waxay sheegeen in ay gantaal ku dhufteen markab shidaal waday oo marayay badda cas. taliska dhexe ee Maraykanka ayaa isaguna xaqiijiyey in xuutiyiinta oo ah urur taageero ka hela Iiraan in ay 3 gantaal oo ah nooca balaastigada ah ay ka soo tuureen gudaha Yemen islamarkaana ay ku dhufteen markabka kaas oo lagu magacaabo Andromeda Star waxaana soo gaadhay ayaa la yidhi waxyeello yar. milatariga Maraykanka ayaa waxay kaloo sheegeen in gantaal kale uu ku habsaday markab kale oo lagu magacaabo MV Maisha balse aanay wax waxyeello ahi soo gaadhin. afhayeenka xuutiyiinta Yaxya Sariic ayaa sheegay in markabka ay duqeeyeen uu watay calanka Panama islamarkaana laga leeyahay dalka Britain laakiinse xog kale ayaa sheegaysa in dhowaan markabka la iibiyey. markabkaas ayaa ka soo shiraacday xeebaha dalka Ruushka waxaana uu ku socday magaalada Fanidar ee dalka Hindiya. sarkaal sare oo u hadlay hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa ka digay in waqooyiga Gaza in ay weli halis ugu jirto in ay ka dilaacdo macluul baahsani inkasta oo wax laga bedelay ayuu yidhi xaddiga gargaarka bini'aadanimo ee gaadhaya dhulka go'doonsan ee Gaza. agaasime ku-xigeenka hay-adda cuntada adduunka Carl Scow ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan xarunta guud ee qaramada midoobay ee New York in weli xaaladdu u sii socoto dhinaca macaluusha isagoo intaas ku daray in loo baahan yahay in la helo gargaar intaas ka badan iyo dadaallo joogto ah oo kaalmo dheeri ah lagu geynayo dhinaca waqooyi ee Gaza. waxa uu sheegay in degdeg loogu baahan yahay cuntada diyaarka ah ee nafaqada wadata si looga hortago macaluusha. Carol ayaa waxa uu sheegay in 3 toddobaad ee ugu dambeeyey in horumar la sameeyey oo gargaar dheeri ahi uu soo gaadhay dhinaca waqooyi hase ahaatee wuxuu sheegay in aanay xaaladda waxba ka tarayn 7 ilaa 12 gaadiid ah oo ay leeyihiin hay-adda cuntada adduunka ee WFP oo la ogol yahay in ay maalintii ka soo gudbaan dhinaca xuduudda. ugu dambayntiina Maraykanka ayaa dib u eegis ku wada islamarkaana ka go'aan gaadhaya in qaybo ka mid a ciidamada Israa'iil in ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha ee Falastiiniyiinta rayidka ah ee ku sugan daanta galbeed ee la haysto ka hor weerarkii 7 Oktoobar taasoo haddii ay Maraykanka u caddaato ka dhigaysa in aanay heli karin kaalmada military ee Maraykanku siiyo ciidamadaasi.
ilo ku dhow oo xog badan u haya baadhitaanka socda ayaa v o eda u sheegay jimcihii in baadhistu ay socoto islamarkaana in la raacayo heshiis is-afgarad ah oo u dhexeeya Maraykanka iyo Israa'iil kaasoo dhigaya in Washington ay tahay inay kala tashato Israa'iil marka ay qaadayso go'aano noocan ah. xukuumadda Israa'iil ayaa weli helaysaa idhaahdee kaalmada militari ee Maraykanka inta uu socdo baadhitaankani xilli ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay ku mashquulsan tahay in ay qiimayso in ciidamada Israa'iil in ay qaadeen tallaabooyinkii looga baahnaa si ay uga hortagto xadgudubyadaasi. dhegeystayaal intaas waxay naga warkeennii dunida haatanna ku soo dhowaada qaybaheena kale idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. aan ku bilownay Somaliland ayaa bilowday olole dhaqaale ay ugu ururinayso dadka tabaalaysan ee ku nool marinka Gaza, waxaana magaalada Boorama ku sugan wafdi uu hogaaminayo wasiirka diinta iyo qaafta ee Somaliland. wasiirka iyo wafdiga la socda ayaa magaalada Boorama ku qabtay kulan arintaas la xidhiidha. warbixin amuurtaas ku saabsanna waxay noo hayo wariyaha v o a ee Boorama Haashim Sheekh Cumar Good. kulankan ayaa ahaa mid lagaga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza, waxaana hogaaminayay wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somaliland iyo wafdi culimo ah, kuwaasi oo kulanka lagaga hadlayay arrintaasi la qaatay culimaa diinka magaalada Boorama. wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somaliland Maxamed Sheekh Aadan Cilmi ayaa xusay in ujeedada shirkan loo qabtay ay tahay sidii walaalaha Gaza ee dhibaataysan waxtar loogu muujin lahaa, taas oo uu sheegay inay u yimaadeen magaalada. kulankeennan iyo wadajirkeennan qiimaha badan ee Ilaahay inoo suurta geliyay ee aynu isugu nimi inaynu u nusrayno diinteenna, aynu ugu nusrayno inaynu waajibaadka walaalaheen inaga haysta wax tar isugu nimaadno. waxa weeyaan waa wax Ilaahay runtii lagu mahadiyo ummad sidaa u midaysan oo waa yeelkeedii horkacayo. xaggaana waanu kaga nimi oo madaxweynuhu isaguna arrintaa isaga waxa weeyaan inoo bilaabay. intiinan mudanta ah ee maanta isugu timi hawshaa muhiimka ah inay ka qayb qaadato oo ay waxa weeyaan si alla sidii suurtagal ah, sidii ay culimmadu xaggan iyo xaggaaba u hadashay, inaynu doorkeenna ka soo baxno macdiratan ilallah, inaynu maanta ka soo baxno. taana waxa weeye runtii waana ku rajo weynahay, waana ku faraxsanahay, waana ku rajo weynahay inaynu guul ka keenayno. waa arrintaa waxa weeyaan gobonnimadeenna aynu kaga qayb qaadanayno, ilaahay subxaana watacaalana aynu ajar kaga doonayno, kagana helayno. walaalayaal, waxba hadalka la badin maayo. culimadii baa tidhi, horaysa iyo dambaysaba tidhi sidii ay ahayd iyo wixii ay lahayd. waxaan maanta idinkana idinku nimi, waa ognahay inaydan raggii maalqabeenka ahayn, laakiin maalka mid yar mid weynba dalkeenna haya. sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar oo ku hadlayay magaca culimaa diinka magaalada Boorama ayaa dhankiisa sheegay inay dalka ay kala mid yihiin arrinta, diyaarna ay u yihiin qaadhaanka loogu yaboohayo dadka shacabka ah ee ku nool deegaanka Gaza ee Falastiin. waddankaan kala midnahay, waanan qaadanay, waanan dadaalaynaa, taagna waa halkeed. kolley gobol hargeysiyaynaan gaadhayn waanu is arkaynaa. waxaa la yidhi odayada xukamada ay odhan jireen adaafa hudhudin sulaymaana wajunda, hudhud baa marti geliyaa nebi sulaymaan iyo juhuuddiisii iyo waan idin marti qaaday iyaali. markaasaa la yidhi tolo hudhud muxuu ku marti qaaday? ma odhanin qoladii may odhan lama marti qaadi kartide, way ka guddoomeenoo waa yahay bay yidhahdeen. xabado ay wuxuu soo qabtaa dhoo badii buu geliyo wuxuu yidhaa la yidhi man faatahu laxmu falaa yafuutahu lmaraqu. markaa waanu kacaynaa arrintaa insha allahu tacaala, waana dadaalaynaa. waxba taagtayadana waxba la hari mayno, waddankaanan kala mid nahay, waana dadaalaynaa insha allahu tacaala. mid ka mid a culimaa diinka reer Hargeysa oo ka mid ahaa wafdiga wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somaliland ayaa ku adkeeyey culimada magaalada in fariinta ay gaadhsiiyaan bulshada, qof walbana aanu waxba kala hadhin wixii uu hanti u heli karo dadkaasi. reer Boorama waana gobolkii diinta shaqbaladkii Somalilandna waa noo haysaan. waxaana laydiin doorta haddii tijaartii iyo ganacsiintii siyaasiyiinta loo yeedhi waayey, dadka waxa indhaha waa culimada
oo de halkuu wadnuhu ugu jiro bini aadanka ayay culimmadu ugu jirtaa. fariinta aa gudbinaysaan inay noqoto ghaza loo duceeyo, waxna yaan lala hadhin, mood iyo nool, habluhu dahabkooda, boloodhka, wax walba biidni illaahi tacaala miyi iyo magaalaba inaan isku tashanno. haashim sheekh cumar good, v o a, boorama. aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo warbixintaasi inala socodsiinayay. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a nagala socoteen. qaybo badan oo ka mid a dalka Kenya waxaa ka da-ay roobab xooggan oo khasaare geystay islamarkaana saameyn ku yeeshay isu socodkii magaalooyinka. meelaha sida weyn looga dareemayo waxaa ka mid a magaalada Nairobi. warbixin arintaas ku saabsanna waxaa inoo haysa Intisaar Saalax Xuseen. roobabkan daadadka wata ee maalmahan ka da-aya guud ahaan dalka Kenya ayaa waxa ay saameeyeen ganacsiga iyo isku socodka guud ahaan magaalada Nairobi. haddaba meelaha ay saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah suuqa Soomaalida Islii oo ka mid ah suuqyada ugu weyn magaalada Nairobi. xogayaha guddiga ganacsatada Soomaalida Islii Cumar Ibraahim ayaa sheegaya in roobabka daadadka wata ee maalmahan ka da-aya dalka Kenya ay aada u saameeyeen ganacsiga iyo isku socodka suuqa Soomaalida Islii. wadooyinka Islii badan, meelo badan oo siiweejyada iyo qashamo iyo wax badan ay ka jiraan, roobabka aada u saameeyey xaafadda Islii guud ahaan. wadooyinkana waa qaar waa meel biyihii iyo meel aan la mari karin badanaa iska jirto, laakiin kolley countiga iyo meelo badanna shaqo waxbaa laga hayaa. laakiin roobabka aad iyo aad u saameeyey xaafadda Islii ganacsigeeda, sababtoo ah mar xilli roobkan badan dukaamadii la furan lahaa xilligeedii waqtigeedii ayuu waa lasoo xiraa, mase dadkii kastankii mase dadkii ka imaan lahaa meelaha korona roobkan dartiisii dukaamadii xilligeedii ayuu la xiraayo. subaxii hore goor dambaa la furayo, waqti dambaa la furaya, sidii hore alsayd hore lama furaayo. dadkii soo safri lahaa iyo meelo badan oo wadanka gudihiisa iyo dibadaha maarta wadamada dariska imaan lahaayna roobabkan meel kasta waay, wadanka dhan waay. marka isku socodkii aada u yaraaday, taasna waxay ganacsiga u saameysay gaadiidka iyo wixii wax kala iibsidkii badnaa oo alaab badan la iibsan jiray hadda ma jirto, sababto roobkan saameyn badan uu ku haya xaafadda Islii ganacsigeeda dhammaan guud ahaan. dhanka kale markii aad dhex socoto suuqa Soomaalida Islii ama qaybo ka mid ah xaafadda Soomaalida ayaa waxaad ku arkaysaa burbur badan oo ka muuqda wadooyinka, kuwaasoo sababay in biyo badan ay fadhiistaan wadooyinka. Cumar Ibraahim ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in burburka wadooyinka iyo sidoo kale tubooyinka qaada biyaha ay kala hadleen waxda qaabilsan arrimahaasi si loo hagaajiyo. waa midda kale wadooyin badan oo iska xiran oo wasaq ay ka socotona wasaq badan waa jiraan. taasna waxay isku socodkii xaafadda gudaheeda aad ay u saameysay, inkastoo aan arintaas aan siiwejada iyo wixii dadkii qalaamihii maarata shaqada ku lahaa aan kala hadalnay, wixii ay ka qaban karaan hadda qaar ay shaqo ka wadaan. marka aad iyo aad ba maarata xaafadaha gudaheeda hata isku socodkii aad u yaraaday. Intisaar Saalax Xuseen, v o a, Nairobi. dhinaca kalena wararka ka imanaya xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa sheegaya in roobab mahiigaan ah oo halkaas ka da-ay inay sababeen khasaare kala duwan, waxaana wararka hordhacay ay sheegayaan in ugu yaraan uu hal qof ku dhintay kadib markii uu guri ku dumay, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a Cabdisalaan Salas. roobab mihigaan ah oo ka da-ay xeryaha Dadaab ee dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah, iyadoo roobkaasina uu sababay geerida wiil yar oo 6 jir ah iyo dhaawac soo gaaray hooyada dhashay wiilkaasi geeriyooday ka gadaal markii uu ku dumay guri cariish ah oo ay ku noolaayeen. qoyskan ayaa deganaa xaafadda K8 ee xerada Dhagaxley oo roobka u xoogan uu ka da-ay. haddaba sidee qoyskan masiibada u haleeshay? waxaa arrintaasi ka waramaya Farxiyo Qani Haye oo qayb ka ahayd dadkii ugu horreeyey ee qoyskan u soo gurmaday xilligii uu guriga ku soo dumay. gabadha aqalka isku dumi waa Caasho Cali Abiikir, habaryarteedan ahay, iyada oo qaylinaysa madaxa kili banaanka iska yaalo. wiil dariska aniga iiga dhawaay as ugu soo roori, ninka qabo aniga i qabo waa walaalkeed laxmi, anigana habaryarteedan ahay walaasheeda dhashay. markaas noo imaada aqalka haraante isnoogu soo geli, gabadhii waa qalaa ku dumi, madaxa keliya banaanka ka aalaa soo baxa,
kaaliya aan caawina asiri wiilka noo imaaday iyo islaantiisa iyo aniga iyo ninkay keli aa caawini meedkana kala soo baxnay oo gabadhiina ka soo bixini wixii nool iyo wixii dhint intii ka dhaxlay waa yahay marka aad soo gaarteen qoyskan dhibaatada ku dhacday qaabkeeba xaalkoodu ahaa qaabka xaalkeeda as ahay waxaa waaye aqalka aqal iska dumeey ah as ahay qofta qof haween oo raggeeda ay kala tageenay ahayd aqal fiican oo u dhisnay ma jirto mar alaala markaas roob imaada qofta caawinaysa aniga ahay gurigay ay ku soo ordaysi xalay maqaadir ilaahay jirtay inay gurigii imaata allaaba ka sandahay markay soo dhaqaaqday tiri roobka waa weynaaday kaala hooyada u oradne ilaahay waxaas tusay inaas aqalkii ku dumaa ilbaabka markaa waa feeda ay tiri waa tahay markaad soo dul istaagteen hooyadii iyo carruurta dhismaha miyay ku hoos jireen dhista hoosteeda ay ku jireen gabadha yar oo curudka u ah jirgaan meesha aali caawis u noqdo qoorta keli aa bannaanka u taalay wiilka hooyada lugaheedas aali dhista derbiga lugaheed gadaasheedas aali caradaaba ku wada duntiba hooyada madaxa keli labadaas il aa bannaanka u taalay kan yar lama taradeedan asku duubnay lugaheeda hoosteedas galay waas nabadgalay dhibka kaasaan hal habeenkii la kulungnay rabbigaana soo qoray taas tan jirtaa taas waa tahay markii dhibka dhacay aad soo bixiseen hooyadii iyo carruurtii kale wax gurmada oo dhinaca caafimaadka waa heshan ma jiraan waxa caafimaadka waxaan ka helna saaka noo imaadeen dadkii oo xisaabsanay oo markaa dhib asdhaco isbitaalka 2 ambalaas aana loogu qaada gabadhii iyo carruurteeda dhubka xalay 5 saacaas nagu dhacay tan jirtaa taas roobka guga oo si xoogan uga da'aya guud ahaan dalka Kenya ayaa wata dabaylo daadad iyo duufaano xoogan taas oo walaac badan gelisay qaxooti badan oo aan haysan hooy ay ka galaan roobka ka urtay gobolka Daawud Usmaan Xasan oo ka mid ah qoyska wiilka yar oo ka geeriyooday ayaa ka waramaya xaaladda hooyada dhaawac ah oo lagu dabiibayo isbitaalka MSF ee kaamka Dhagaxley dib ilaahay kor aska keenay ayaa nagu dhacay guri oo annaga aan dhisanay oo tabardarri loo dhisay ayaa nagu dumay haddii ilaahay raalli ka ahaado 4 oo ruux ay ahaayeen waxaan ka badbaadinay 3 ruux waxaa keenay haddii ilaahay raalli ka ahaado roobabka oo mahiigaanka ahoo aad u cuslaay oo duufaan ay la jirto hal cunugna guriga waa naaga dhintay marka waa kaasoo haddii ilaahay saasay wax u jiraan waayahay guriga ku dumay carruurta ee sababay dhimashada halka canug iyo dhaawaca hooyada muxuu ka samaysnaa guriga bal sawir ka bixi guriga waxaas ka samaysnay dhisaas ahaay dhoobaas ahaay haddii ilaahay raalli ka ahaado bulkeetina ma ahayn waa tahay wiilka dhintay allah u naxariisto mise jir ayuu ahaa 6 jiraas ay cunug waa kaa waa tahay bal ka waran xaaladda hooyada mada waxaa waaye garaa waaye bulkeetiyaa ku dumay haddii ilaahay raalka feeraha ilaa macal lugaha kulli way ka burbursantay haddii ilaahay raalli ka ahaado dad oo tabaraysanaan ahayn ayaan nahay waxaan u baahannahay in naloo soo caawido oo wax naloo qabto oo guri naloo dhiso ayaan u baahannahay saacadihii la soo dhaafay ma jirin wax gaadiida oo ka shaqaynaya gudaha xeryaha taas oo sawir xoogan ka bixinaysa heerka uu gaarsiisan yahay roobka ka da'ay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdi Xuseen Aadan waxaan wiilka oo hadda geeriyooday qadeerkiisaan ahay oo aabihiisii anigaas la dhalnay waana ka soo gaari waynay saaka 2 saac subaxnimo meesha aan ka soo tagnay ifo yaan ka soo lugeynay aniga oo fara badan gabdho iyo dumar iyo iskula jirno marka waana ka soo gaari waynay saas ay tahay horteena baa la aasay miidkii marka wax isku soconaya gaarina ma jiro roobkii aad buu u tiro badan yahay dadka dhibaato aad u fara badan baa haysata wadada aad bay u maartay ma soo mari karo baabuur ma jiro mooto ma jirto oo wax isku socdo gaari ah ma jiraan ugu dambeyntiina qaxootiga ayaa si guud uga walaacsan inay xirmaan wadooyinka isku xira gobolka iyo dalka intiisa kale haddii ay roobabka sii hooraan taas oo horseedi karta sare u kac ku yimaada maciishada iyo adeegyada kale ee muhiim ku ah bulshada qaxootiga ah Cabdisalaam Salas VOA gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya halkaas wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ah ee VOA haddii aan dhinacaas iyo aadno Maraykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeeshay
afrika. loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xidhiidh diblomaasiyadeed. ruushka ayaa sannadihii u dambeeyey ballaadhinayay joogitaankiisa afrika, iyada oo ciidamadii maraykanka lagu bedelay kuwo ruush ah. xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo diyaariyey. saamaynta uu ruushku ku leeyahay qaaradda afrika ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaysa, waxaana taasi barbar socda hoosu dhac weyn oo ku yimid xidhiirkii maraykanku ula lahaa dalalka saaxilka iyo galbeedka afrika. dowladaha afrikaanka qaarkood waxa ay soo dhoweeyeen kordhinta iskaashiga ay la leeyihiin ruushka. haddaba maxay ku macneeyeen madaxda dalalka afrika xidhiirka sii xumaanaya ee ay la wadaagaan reer galbeedka iyo maraykanka? waxaa arrimahaasi inoo sharxaya malyanle yuusuf oo ah aqoon-yahan ka faalooda siyaasadda kuna sugan magaalada chicago ee dalkan maraykanka. in muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha nabadgelyo, horumarineed iyo militari oo ay isku herdiyeen dalalka maraykanka, ruushka iyo shiinuhu. maraykanku waxa uu isku dayayey inuu afrika isagu gacanta ku dhigo, kana fogeeyo afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha. hase ahaatee xuseenow, sida ay sheegtay jaridada Politico, maraykanka waxaa hadda u caddaatay in istiraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka afrika, gaar ahaan dalalka la ysku yidhaahdo saaxil iyo dalweynaha ruushku, si aanay u yeelan xidhiidh dhow, aanay hadda istiraatiijiyadaasi shaqaynayn sababaha soo socda awgood. 1. dalalka saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen maraykanka aanay dani ugu jirin, aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha maraykanka, halka ay ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya, faragelin toos ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee afrika. arrinta labaad, marka uu maraykanku ballan u qaado afrika, inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqaynayn afrika. dhinaca kale, ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen. arrinta saddexaad waxa weeye maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer yurub uu u ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaano bannaan, la joojiyaano bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'ii dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya. arrinta saddexaad waxa weeye maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer yurub uu u ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaano bannaan, la joojiyaano bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'ii dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya. si kastaba haatee, waxaa jira tiro hogaamiyaal afrikaan ah oo ka walaacsan ujeedooyinka ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda gobolka. aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey. ka hor dhinacii heesaa intaynaan jaleecin, haddaan qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka idinkuud maro. ururka xuutiyiinta yeman ayaa aroornimadii hore ee maanta waxa ay sheegeen in ay gantaal ku dhufteen markab shidaal waday oo marayay badda cas. taliska dhexe ee maraykanka ayaa xaqiijiyey in xuutiyiinta oo ah urur gacansaar la leh iiraan in ay 3 gantaal oo ah nooca balastigada ay ka soo tuureen gudaha yeman, islamarkaana ay ku dhufteen markabka, waxaana markabkaas oo lagu magacaabo Andromeda Star soo gaadhay waxyeello yar. militariga maraykanka ayaa waxay kaloo sheegeen in gantaal kale uu ku habsaday markab kale oo lagu magacaabo MV Maisha, balse aanay waxyeello ka soo gaadhin gantaalkaas. afhayeenka xuutiyiinta yaxya sariic ayaa isna sheegay in markabka ay duqeeyeen uu watay calanka Panama.